Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan rabaa inaan la wadaago maadaama aan ka hadalnay in culayska la dhimo, inaan idin tusiyo cunto aad ku dhimi karto culayskaaga, taasoo caafimaad leh. Subaxdii markaad soo toosto uma baahnid inaad canjeero iyo beer iyo waxyaalahaas ama rooti aad cunto. Run ahaantii waxaad samayn kartaa, waxaad cuni kartaa half green, umana baahnid inaad digsi aad ku karisid, laakiinse waxaad soo qaadanaysaa xeero, kadibna xeeradaas ayaad ku shubaysaa half green tea ama boorashkii, haba sidaa u taqaanid. Biyo aad ku shubaysaa, kadibna cusbo yar baad ku dhibcinaysaa, kadibna waxaad gashanaysaa mikrooga, kadibna waxyar adigu 3 ilaa 4 daqiiqo ayaad u daynaysaa iyadoo diyaar ah ayaadna kala soo baxaysaa. Halkaas waxaad ka heshay cunto wanaagsan oo caloosha u fiican, oo ay ku jiraan long term carbohydrate waxa la yiraahdo, ama carbohydrate-ka tartiibta u gala jirka. Carbohydrate-da laba loo qaybiyaa, mid tartiib u gala jirka iyo mid markiiba isku bedelaya fat oo caloosha iyo jirka kale asagoo baruur ah tagaya. Marka boorashku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha carbohydrate-ka long term-ka ama tartiibta u gala caloosha jirka buu ka mid yahay. Sidoo kale si aad u heshid protein ayadana waxaad karsan kartaa ukun, 2 xabo oo ukuna iyo xabadaas haddaad isku cunto, iyo half green taas ama boorashkaas haddaad isku cunto uma baahnid inaad wax kale. Quraacdaas saas kugu dhantahay, quraac caafimaad leh oo jirkaaga u fiican, fududna baad saas ku quraacatay. Marka quraacdii waa taasaa, sidaan u sameeyay waad ila daawan kartaan. Marka waxaynu balana qadada daawasho wacan. Wali waxaa socota qaabkii aan u habaystay quraacdayda. Hadda waxaa la soo gaaray xilligii qadada. Waxaan ku qadaynayaa maantay digaag. Digaaga ma ahan nooc walba, waa chicken breast ama digaaga meesha beerka miyaa la dhahaa, meesha xabad digaag weeye, sababtoo ah fat badan male, waa protein waana hilib cad, maaha hilib guduudan. Alaaba hilib guduudan uma fiicna caafimaadka. Haddaad hilib cunayso waxaa wanaagsan inaad cunto hilibka cad sida hilibka digaaga iyo kalluunka. Marka hadda digaagii oo aan mar hore banaanka soo dhigay waxaan ku darayaa xawaash kala duwan oo qaybo badan ah. Digaaga xabadkiisa alaaba waa qalalan yahay, uu dhadhan aad u macaan male. Marka waxaa u baahan tahay inaad ku dartid xawaash badan. Marka xawaash badan ayaan ku darayaa iyo saliid, waa marinate garaynayaa, kadibna waxaan ku darayaa waxaan gelinayaa hoos, waxaan sugayaa 45 daqiiqo meelahaas. Kadibna waan arki doonaa siduu noqdo. Marka hadda waxaan diyaarsanayaa qadaydii oo ah qado caafimaad qabta, caafimaad leh. ayada ma caafimaad qabto, way caafimaad qabtaa dabcan, laakiin waa qado caafimaad leh ayaan karsanayaa. Qadada waxaan ku cunayaa bariis ma ku cunayo, sababtoo ah bariiska, burka, rootiga, canjeerada waxaas dhan waan iska ilaalinayaa. Markii aan rabo miisaankayga inaan dhimo waxaan ku cunayaa bahal la yiraahdo quinoa. Waa sida bariiska oo kale, waad ujeedaan dhadhanka bariiska oo kale ay leedahay, consistency-ga bariiska oo kale ay leedahay, laakiin way ka caafimaad badan tahay. Bariiska waxyaalaha keena inaad
calooshaadu weynaato ama uu miisaanka kugu darsamo buu alaaba ka mid yahay, sababtoo ah bariisku waa ii sheeg bariis waa waxaa laga saaray qubab badan. bariiska raw rice waxaa la yiraahdo ma ahan, oo sidii beerta looga soo jaray ma aha, ilaa 3-4 qob baa laga saaray bariiska aragtaan. marka waxaa la isku soo reebay in yar oo cad oo wax allaala wuxuu nafaqo iyo vitamin lahaa bariiska waa laga soo saaray. dukaanka haddaad tagtid waad ka heli kartaa raw rice, laakiin dhadhankiisu ma wanaagsana, tanaa ka dhadhan wanaagsan. marka waxaan ku darsanayaa yaroo qudaar ah iyo digaagadii. marka daawasho wacan. I see trees of green and roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself,